hooyo cudbi daad ducaale oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xisbiga kulmiye isla markaana ka mid ah hooyooyinka reer Somaliland ayaa ka hadashay xaaladda guud ee dalka iyadoo sheegtay inay si weyn u garab taagan tahay madaxweynaha dalka iyo madaxweyne Biixi isla markaana musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye waxayna sheegtay inay codkeeda ugu heli doonto hooyadan ayaa madaxweynaha dardaarana kala duwan iyo ducooyin isugu dartay waxayna sidoo kale halkaas ka tirisay buraanbur ay ku amaanayso isla markaana ay wax ugu sheegayso hooyo cudbi oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaysa ayaa waxay tiri magacaygu waa cudbi daad ducaale oo joogto magaalada Hargeysa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan marka labaad waxaan ka salaamayaa dawladayda wanaagsan waxa aan salaamayaa madaxweyne Muuse Biixi waxa aan salaamayaa inta guurti iyo baarlamaan le dhammaantood waxa aan salaamayaa ciidamadayda qaranka ee midna difaacaya iyo mid noo dadaalayaba leh ilaahayna waxaan idinka baryayaa dhammaantiin in ilaahay garabkiina galo ayaa gabayga horta waxa uu ka bilaabmay oo uu ku saabsan yahay ama deewaanadayduba waqtiyada kamid ah oo waqtiga aan xanuunsaday horaanteedii ahayd oo galeyd markaa wadanka ka baxay Allah raxme ayaan oo halka de magaalada maanta dagaalku ka dhacay gobolka uu ka dhacayna arrimaheedu ay soo hurhurayeen ayaan BBC-da dhageysan jiray BBC-da baa waxaan arkay iyada oo laynaga sii socdo ama laynoo tashanayo gobolka maanta aynu islayna ee dhulbahante weliba meelaha kale ee maanta iscadeeyay ay inagu soo dirayaan anigoo dabeeto keligay iska dheelaysan ayaa arintii soo korodhayo odaygiiba nin wariyay isagoo la hadlayo uu leeyahay waan baxayaa baan maqlayo laakiin waan soo noqonayaa dhowr iyo 10 cisho kadib in badan odayga waxaan ka maqlayay hadii imaka arinka aan wada wax laga qaban waayo meel dheer baa laga deeday gobolka iyo dhulbahante halka markaa rag badan baa arrimo badan oo aariya waxaan arkay marka aanu xagga u baxno Ethiopia markaanu Garowe maradaanu tagnay iyada oo waxaan ku iri dhigta kaaga soo duulayaan iyada oo laynoo soo dhaaranayo marka aan arinta bilaabay horta markaas ahayd aniga oo marka xanuunkii horeeyay abaaray waxaan markaa mid waa ka markaa ka hadlayay oo awoodaan u waayay markaa inaan soo gaarsiiyo madaxdeena iyo Muusaba aan fikirkayga soo gaarsiiyo waa fikirkayga markii dambena aniga yeelantaydi curad waan ka sii daro waan xanuunsano waxaan tagay ardi sababa muddo dheer oo ilaa dagaalku markuu dhacay intaas oo dhabaan ku maqnay inanta waa la iga qalay aniga waa la qalay yaani aad baan u dhibaatoon ka bacdi sidaasan ula habsaamay wixii tala iyo tusaalo aan adeerkay iyo madaxdaba ku oran lahaa marka kolka hore anigu weligayba kulmiyaan ahay dadkuna kulmiyo wada jecla odayga maanta tartamaya waa ogeydeen oo ciidana ma jeclay manayna danaynaynin imakana maba garanayna meel uu taariikhdiisuba ku sal yeelan doonto iyo meel uu ka hilaaci doono ilaahu khayr nooga dhigun baynu leenahay hadduu inaga helo haddii kalena wuu iskaba tegi annagu reer kulmiyuun baanu ahayn weliga iyo meelan kulmiye ahayn maanan ku salaysnayn imakana iyagana ku salaysanay waxa weeye ragga kulmiye marka waxa aan ku dooranay
إلا ضدك وحولي هي مبدأ وحنا كدورنا وحوي عند المجاهدين تبع هيدا هذه جاي السيلايبة رجي إنه هالجماعة إنه كجرات صنّي دنوش قيني بقى هيدا ضلك يدك كبد النفط وهري مركها وحوي إما كنا سيدي بانو ولدي عد مدحوينا نوقو طيب ما تدي نجمد وريجين نجمد وريجين دي مكادون بانو مدحوينا أنا قلنا دي أدون بانو كل سعنا إلهي وحي شر البشر كود هينا كحفظه وحي خير لنا خير كود هينا السيو أودي سنة الله هينا عدو هينا قبته هينا قد دفاع ملك استويني تشوجنه دلي يد بد إن هالكامركا وحن كبل عبي إن أنا جو مركا كدرين سينا يا إن ريركا دول بحنت هوليسه مركا إن هالكا وحن مركا يدي مصبيلو دو هدال كيكا بيغو مقال دنبال بانكو ودا يدغا هايسي ولي ديغ يعاب كي وايني ugu dholoolayaan dhurwaya dhoon raacba dhufa isku jira dhulkana wanaagsan bay dhamac ku ogayaan dhimantasan bay dhabaaqsan leeyihiin haddaan dhaadi weyna way inaa dhammaynayaan dhegaha furay dhawaaqaygu yaanu dhumin musabayloodow hadaalkayga beegu maqal weli dhigyacaabki weyn ugu dholoolayaan dowladda dhammayska tiraan bay dhantaalayaan gola iyo goortiday kala dhantaalayaan ciidanka dhegaysan bay kala dhantaalayaan shicibka aan dheeliyayne iswada dhunkada dhibtiya dheeftaba wadaagay dhantaalayaan haddaan dhaadi weyna way inaa dhammaynayaan dhegaha furay dhawaaqaygu yaanu dhumin sabayloodow hadaalkayga beegu maqal dhambal baan ku wadaaye dhagaaysi madaxweyne dheeran bay kala dhantaalayaan dhigisa ka fiican bay kala dhantaalayaan weliba dheeraad watay kala dhantaalayaan haddaan dhaadi weyna way inaa dhammaynayaan dhegaha furay dhawaaqaygu yaanu dhumin musabayloodow hadaalkayga beegu maqal galadh weli dhigyacaabki waayin ugu dholoolayaan galadhgu goostayo wala garanaya go'aan buu kaga tegay gadaha iska eg dabina xidhaan dareen kaga sare u qaad madana dabkoogu jire dacad ha u malay madana dabkoogu jire dacad ha u malayn tiriyay ayaa aan damcay haddaba inaan adeerkay dee waa madaxweyne waxa weeye siilaanyo weynu ogeyn wuxuu u dhiibay oo si bilaa shuruuda sida aan dee aniga oon siyaasi ahayn ugu dhiibay oono annana ugu ridnoon ku jeclayn oona ilaa alaan ku kalsoonnahay dowlad dee dhammaystiran oo heer sare ah xoolaha weynu foofinaa adhi iyo geelba marka ay barwaaqadu sheexdo qofka markaa xoolaha raaci ogi
marka uu gaarsiiyo xoolaha dareeriye meeshii barwaaqada ahayd uu ku dareeriyo xoolaha baa la yiraahdaa uu soo madax jabiya geelina wooh baa la yiraahdaa marka arrinkan xoolaha buu maraayay xasilaadaas uu maraayay waxba inagama dhinnay dawladda noocaasa ee aan wax ictiraafkii oo ilaahay badda ina ictiraafay oo markan adduunka dhageysto anigu siyaasi ma yihi indheer garadna ma yihi laakiin markan adduunka dhageysto jimciyada quruumaha ka dhaxaysana ku dhaho meel ina dhaantaaba ma jirto innaga caalamkaba ugu wanaagsan ictiraafkan la raadinayaaba waxba lagalama maqna nimcaynu ku jira laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah baynu hoostiisa harsanayna ilaahay bay nagu filanba anu waxaan badhan la yaalay isku hawlin ba ictiraafkan marka waxa weeye nin lahay ictiraaficida kama satroona halka wixii naga qabsadaa ogeedan waxaynu soo mareed waqtihiin wala ilaahay bay inoo hiiliyay hiilka ilaahay hiilka weynba ma jiro waayahay dawladii marka caynka ahayd ee lagu dhiibay ayaan doonayeen kuugu ridnay aanu kugu raali gelinay ayaan haddana madaxweynahayga ayaan la hadlayaa waano haddana halkan soo saaray taasoo ah waxaad haysataa adeero shicib wanaagsan dawlad wanaagsan oo iswada ogol shicib wanaagsan oo iswada ogol yacni caalamka marka aan dhageysto laguma hayo dad caynkan isu ogol lahay isu ogol oo kala dambeyn leh oo sidaa isu ogol oo marka ay wax dhacaan markiiba odayadoodu dhex galayaan oo arrinkooda dhag laga siinaayo caalamku waxa ma haysto kullu way la aragtaan adayga indheer garadsan cid walba wiga fikir roonta marka waxa weeye waxa aan adeerkay tusaaleynaya marka sidii dadka wanaagsan ee quruxda badan ee hoggaanka u qabatay dee laguma xalliyo xaaladooda qadhaadh laguma xalliyo cariyo wirna laguma xalliyo waxa lagu xalliyaa sidaan aan kuu sheegi doono Soomaalidu waxay tiraahdaa habar dugsi fadhidana loo baahan waxa weeye sidaan aan kuu sheegi doono ayaa lagu xalliyaa ninkii wiil waa la oran jiray baa ayaa yiri baa la yiri rag habartiina u tiyo walaal wuxuu ku dhaamami jiro dad wanaagsan oo markay wax dhacaan shicibkay horta inta badan wadanku ka sii dhisan yahay dad marka ay wax dhacaanna isqabanaya baynu nahay oo wanaagsan is wada ogol talabaad waxaynu nahay dad waad arkaysaayoo aan ugu ridaaya hadduu ku kasta yimaado mid walba raali gelinayo ugu ridayo bacadka u taagan intaan caruurtii yaryarayd oo agooma ah oo maanta dee aanan aabbow haynin oo boqolaal dumar iyo malaayiin la mid yahay ayaanu intaanu masaariiftoodii iska dhaafno oo qadinno ayaanu bacadka isu kiin taagaynay waanu idin raali gelinaynay waanu idin ku ridaynay imakana waanu idin ku ridaynaa dimoodkuna diyaar baanu idin waxa weeye dadka caynkaasa ee aan idin la xisaabtamayn in waxa dhowtana banaanbax iyo baraaye iyo taxaantoona sameynaynin ee maalintii wal ee tiraadaan noogu ridba raaliya ee aan idin la xisaabtamaynay doonayna sixir barar iyo waxbaan nagu kacay oo maanta waanu idin qawadnayada wax noo qabta ee aan shoo baraba lahayn ilaahay un baa laga helaa alxamdulillah ina tiraada kulligin madaxo dhan ee alxamdulillah laakiin ina de dagaal noo horseedaan meesha ma taalo meel aanu cararay meel aanu kacna toona ma hayno waanu idin dhowranadeena dhowrta waxaanu idin dooranay inaan nadar yeeshaan nadar yeela oo arrimaha iyaga de ku tumanina marka waxa weeye halkaasan adeero intaasina waa deynantaadii de wax ku sheegaysa waxaan doonay markaa haddana adeerkay sidii uu markaa dadkeena ula wada macaamili lahaa waxaynu nahay 5 beelood ayaynu Soomaaliland ku leenahay 5 beelood de beel waliba raali gelin bay doonaysaa beel waliba waxay doonaysaa in de arinteeda hoos loo eego adeerkay markaa taasaan u tilmaamaya arab macaan wax ka wanaagsan ma jiro
qolo ku soo eriyanayso markaad u tagto xabad kaala hor imanayso loodhanayo kuwa madaxweyne dilayna ma jiro waxa weeye qolo waliba iyadunba iyadoo faraxsan intay ka hor timaado markaad u tagto ilaa minbari ilaa min galbeed iyadunba ku soo dhaweyn doonta waxay doonayaan wada dhameyn mayside de wax ka soo qaado wixii muhiim ka soo qaado laakiin dadka la fadhiga iyo la hadalku daweeya halka marka gabaygeegaasi wuxuu ku salaysan yahay musadana bow dardar ban ku siinaya anigu ku caayimay aqlan wada adeer haydidineen xurka daadahe adeer haydidineen xurka daadahe adamu sow malkadii maanta noo fadhiya adaanu ku doorano dowladii hantiyay ada dhar noogu maray inaanay dheeliyayn annana ku dhiibnay iyaadoon dhaleelahayn adaa maamulkee haye yaanay kaa murkaca adeerka sedeese arrima u wada olkeen banbo ka dhaxlay wasiilaan adeerka sedeese arrima u wada olkeen guriga haseexane gaadhka sare ahaw miyiga iyo magaaladaba soo mushaax gayiga Somaliland gelin ku soo wareeg ado muraadkay leeyihiin kala mashaawirood adoonka maroorsanayn talaada meel ka sii runtana ku heshiiya ruuxday wanaajisa runtana ku heshiiya ruuxday wanaajisa cisiya gada beersi gacaalkeena raali geli waliba way reemayaan rubays dhiga markaan leeyahay waa wada fadhiista waliba way reemayaan rubays dhiga guda birsi waa garaade gartooda si gar waa loo wadaa islaane gurada kada samigay leeyihiin saacad ugu dhawaaq samigay leeyihiin saacad ugu dhawaaq goboladoodeeta gogooshooda kula cawe adoo lo qoslaaya qalbigooda faarax geli sidaas sacada walaa lagu cilaamiya cise wuxushoonayaa xaqooda mare waliba waa xumaha wayskaga durkaan xaqooda mare guri maxeeriyaan xaqooda mare waliba xerbeeti weeye xaqooda mare goboladoodeeta gogooshooda kula cawe adoo la qoslaaya qalbigooda faarax geli sidaas sacada walaa lagu cilaamiya hablaha waxa iyaguna halkan soo geliya hablaha inan walba wax la soo baray inan waliba agoomo u shaqaynayso inan waliba waalid haday doonto de goblanaba u shaqaynayso iyaguna waxaan ku dhahay wax la bare lagu tabcay xilkii loo diiday dibadda loo xooray hablahan diintiya dastuurkiiba lagu hagayn hablaha aan dawlad kale maanta loo dirayn hablaha la dayrinaayo dulmigu ku dhacay iyana dumarkeeni weeye sidaa kada iyana dumarkeeni weeye ha loo damqado hablu goob malaahe guri weyn ha loo gingimo haddana ku macneeye adeeri maqaal haddana ku macneeye adeeri maqaal dawlad arab weyday waa la indhabeelayaa
arabku wageesiyaale gadaal ha marin warragge kogo guntadaaye gadaal ha marin gobtana waa laga xishooda gadaal ha marin nafsiga waa lagu gobtaaye gadaal ha marin haddana ku macneeya adeeri maqal ninkii lafta dhabaar ka waaya dhabuma orde dowlad arab weyday waa layndhabeelayaa arabku wageesiyaale gadaal ha marin warragge kogo guntadaaye gadaal ha marin nabsiga waa lagu gubtaaye gadaal ha marin gobtana waa laga xishooda gadaal ha marin goboladoodii tagogooshooda kula cawe adoo la qoslaya qalbigooda faarax geli sidaasa cadha walaal lagu cilaamiya haddanaan ku macneeye adeeri maqal garxajis waa dowladu waa dunida barhkeed bari bay kaa xigaan bashacada ugu dego alli dayrkaaga dhigay dacadogoo ahow dahabiyo dheeman weeye dhulkaa ha dhegeen dahabiyo dheeman weeye dhabtaada saar goboladoodii tagogooshooda kula cawe adoo la qoslaya qalbigooda faarax geli sidaasa cadha walaal lagu cilaamiya haddanaan ku macneeye adeeri maqal raggi xogga iyo xoolaba looga hadhay raggan farahooda boog lagu xisaabin karin raganimo xoorinaya xadaarad kule habar xabooshiya xariir baa xaggaa fadhiya goboladoodii tagogooshooda kula cawe adoo la qoslaya qalbigooda faarax geli sidaasa cadha walaal lagu cilaamiya haddanaan ku macneeye adeeri maqal dhulbahanta hadhayo hawshooda lagama baxo markay bala koololaan beni waa hadhow mana badheedhaano toodana ma beegsadaan haddaan ragga soo baxaya wax kalaa bedelin waa markii raggoodu doorashada inala soo galay haddaan ragga soo baxaya wax kalaa bedelin haddaan ragga soo baxaya birbidhisa noqon labada beelood dhexdooday ku baadayaan baqa ha ka dayninoo bahalka ha uga tegi goboladoodii tagogooshooda kula cawe adoo la qoslaya qalbigooda faarax geli sidaasa cadha walaal lagu cilaamiya maanta bahalkii way si loogeenoo de kala badhna way nala joogaan kala badhna way tageen wixii tagay waxa weeyaan waynu iskaga hadhina dhallaankii dushaada ogol baa la sitaa wixii nala joogana ha ka nabsi gelina xaqoodii xuquuqdoodana ha ka dhex marina siiya way ii sii socdaa weli mid baa haddana ii hadhay musowan kula jiraaye ha kala jarjareen adeer wan kula jiraaye ha kala jarjareen qaranka Somaliland hayga kala jarjareen jidheer baa loo maree hayna kala jarjareen cadowgayaynaanu jabeen ha kala jarjareen musowan kula jiraaye ha kala jarjareen doqoni waa jeese weliga ha kala jarjareen dunidiiba jiriidaad haysataay ha kala jarjareen dunidiiba soo jahaysane ha kala jarjareen dunidiiba soo jahaysane ha kala jarjareen ragba kuu jeel qabe hayna kala jarjareen musowan kula jiraaye ha kala jarjareen
Somaliland jiida weliga ha kala jarjarin adeer jirkeeni weeye ha kala jarjarin waanu jiboonayaa ha kala jarjarin cadab ha ku jiidano hayna kala jarjarin jannada ha seegino hayna kala jarjarin waan ku ducaynaynaa adeere hayna kala jarjarin haddaad kala jarjarto dee heli maysid waxaad xukunto oo iniba geesu cararto dad wanaagsan baad haysataa qolo walba gurigeeda tag qolo walba adigoo ka farxinaya arrin kale looma wada dhamayn kara dadka dee waxna u qabo waxna ha ka dhinaada jiida adeera dadkaaga aad u dhimateed u dagaalantay wax ka wanaagsan ma jiro anigu ina yar baan maalinta dagaalamayseen oo yar oo waxta dhaawacaan wax siinay iyadoo waalidkaygii eriyayo dib la ii celinayo la leeyahay inanta yar ka soo qabta ragga in dherigaan u karinay dhiigoodan xidhaay aaskan ka qayb galay cuntadan karinay iyagaan rogayo jalayo biyaa siinay qalbigiina niyadan idin kala socda marka adeero haynaga kala baabiin dal kale ma haysana dad kale ma haysana meel kale inoo ka cana ma hayno ilaahay baa iyadoo layna baabiin lahay inoo dhiciyay wadankeena haynaga baabiinina heshiiye dhexdiina ilaahay caafimaad iyo cudur la'aan ha mariyo allah ay sukiin wada sakhiro inta ay in ka badan baan ku hayaaye waqtiga ii saamix waa inaan soo wada daayo maanta waqtiga ii saamix waa inaan soo wada daayo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji